waxaan dhisaynaa maanta waxa loo job search platform. waxaan rabnaa in all concepts from reactive basics, component architecture, componentska reactive sida u shaqeeyaan, reactive hookies ilaa maanta aan gaarno advanced hookies, use callback iyo use memo ay ka mid yihiin. react router dom iyadana waa dib u cusboonaysiin aan ku damayn doonaa. waxaa kaloo muhiim oo maanta qaadan doonaa wax la dhaho design patterns. akhyaari design patterns waxay ka mid tahay waxyaalaha ugu muhiimsan ee programmer walba looga baahan yahay. waa basically markii aad projectigaaga uu sii weynaado oo projecti weyn aad kasii shaqeynayso, team aad la shaqeynaysaa, qof walba meeluu ka shaqeynaya adhaano, adiga waa muhiim koodkaaga inuu yahay very readable. design patternska waxaa ka mid ah in API callskaada iyo UI-gaada aad separation u samayso, in yani hookies custom aad isticmaasho, in yani waxyaalahaasoo dhan aad samayso. waxay ka dhigaysaa koodkaaga more professional. waxyaalahaasoo dhanna waa ku samayn doonaa halkaas. Okay. markii koodii akhyaari waxaa u baahannahay in repositorygan aan ku colon garayno. waxaa sameeyey GitHub repository templatekan wuxuu ku set upgraysan yahay. ma rabno designka iyo waxyaalahaas waqti inaan ku lumino. marka templatekan yaa u baahan doontaa inaad GitHubkiga tagtaan oo cloning aad ku samaysaan, localka aad ku haysataan, si frictionka iyo culeyska oo idinkaga yaraado. waxaan rabaa inaan intusiyo projectiga hadda demoga ah oo aan dhisi doono. marka koowaad, projectigan wuxuu noqonayaa projectiga aan ku bilownay aana ku dhammayn doono. maxaa ka wadaa? hadda waxaan ku baranaynaa wax walbo oo aan u baahannahay. waxaan hadhow futureka ku daraynaa in qofka shaqo uu soo dalban karo, in lagu xiri karo backendi dhab ah, waxyaalahaasoo dhan in lagu samayn karo oo aan dhisno projecti dhammaystiran oo GitHubkaaga aad gashan karto oo very professional oo aad deploy garayn karto. marka hadda waxaan ku bilownay fundamentalska iyo waxaan ku baranayna wax soo goobayo. waxaan dhisaynaa wax la dhaho projectigan baan dhisaynaa grad job.vercel.app. projectigan sidan u ekaanayaa. halkan waxaan ku haysanaa jobs. waxaa kasoo baxayo dhammaan shaqooyin oo backendi dhab ay ka imaanayaan, maaha wax manuala. backendi koodkaasna waa insii doonaa oo URL-ka isticmaalaysaan. qofka wuxuu raadin karaa shaqaduu rabo. waxaan dhihi karnaa developer. waxaa soo baxaya shaqooyinka developerka. waxaan ku raadi karnaa locationka uu joogo, aan dhahno Dublin. 3 role soo baxay. waxaa ku filter garaynayn karnaa by contract, by remote, by tagskan ku filter garayn karnaa iyo waxaan rabno. waxaan arki karnaa single job detailskeeda. hadhow mustaqbalkana waxaan ku xiraynaa qofka shaqada inuu soo apply garayn karo. waxaan ku xiraynaa oo kale wax la dhaho paginations. tusaale, haddii waxaan aad soo listi garanayso ay ka bataan boqolaal wax, waxaa u baahantay inaad ku xirto wax la dhaho pagination. haddii kale UI-gaada ma soo saari karo, performancega iyo waxyaalahaas oo dhan way adkaan doonaan. marka projectigana isla dhisaynaa. marka koodii waxaan u baahannahay kan inaan kusoo colon garayno. waxaan rabaa marka kaas inaan kusoo colon gareeyo. waxaan leeyahay git clone. intaas ka hor horta bal aan tago folderka aan rabo. waxaan tegayaa documents. halkaasaan tegayaa ls aan dhaho. ninkaan iska tirtiro rm-r grad template. sidii baan u isticmaali karo. yes aan leeyahay override ninkan aan ku sameeyo si uu iga tirtiro. hadda waa iska tirtiray. waxaan leeyahay marka git clone kan kusoo clone gareeyo. markii aan kusoo clone gareeyo waxaan leeyahay markaasi waxaan tegayaa allahul mustacaan visual studio codekeyga. halkaanaan tegayaa. waxaan leeyahay npm install aan leeyahay si packageskan aan usoo install gareeyo. kadibna waxaan ku bilaabayaa markaasi live serverkeyga si aan u aragno templateka aan haysano. hadda wax kale maanan sameynin. templateka leen soo qaatay oo soo dhex dhigtay waana ku colon gareeyay. alright, aan ku furno onlineka. waa aragtaan soo maaha. waxaan hadda haysanaa boilerplate template ah. koodkan waa sharixi doonaa. waxaan halkan ku haysanaa hero section. halkan waxaan ku haysanaa cardiskan. haddii jobska aan tagno waxaan ku haysanaa jobs template oo waxba aan qabanin. job detailkana intaa yaraa ku haysanaa. wax advanced maaha. waxyaalahan oo dhan waa manual. haddii aan tago hadda koodkeyga kana iska xiro folder structure-ka aan idin tusiyo. waxaan ku haysanaa halkan packages fileskeena muhiimaha kaas hore u aragteen. halkan ninkan waxaa la index.js waa halka browserka aan ka dhahayno soco store render gray appkeen oo dhan. appka haddii aan tagno waxaa noogu dhex jiro layoutkan wax kale maaha. waxa weeyaan component ay wada adeegsanayaan dhammaan filashoo dhan. macnaheedu waxay tahay file walba oo aan booqano waxaan rabnaa componentska inuu kasoo baxo. waxaa noogu jiro linki oo ah imageka oo grad. waxaa noogu jiro markaasi nav linkies oo ah home iyo jobs. haddii aan ku dhufano labadaas linki baa noogu jirta. waxaan arkaynaa headerka intuu halkaas ku xirmay. mainka marka waxaa soo dhexgalay childrenka waxa waaye wax walba oo layoutkan ku dhex jiro. marka children ay noogu cayin. footerkana waa kana. marka layoutkan waa component general ah oo meel walba oo aad tagno aan isticmaalayno.
routiskana waxaan ka keenay markaasi react router dom. Routis baan dhahnay, routiskii baa halkan ku define karayna. Waxaan haysanaa slash waxaan wacinaa home waxaa noogu jiro pagekan oo leh componentigan. Componentigan maxaa kasoo dhex baxayo? Ujeedada koowaad ee templatekan wuxuu yahay in designin waqti badan aan kulumin. Waxaa nooga soo dhex baxayo qoraaladan iyo find your job iyo detailskan, kadibna qofka laleeyahay browse job oo halkan aad ka arkeysaa markaasi browse job iyo cardiskan oo halkan ku qoran ygrad iyo waxyaalahaas. Waa design iska very template ah. Halkan waxaan ku haysanaa jobs component page. Jobs component waxaa noogu jiro roleskan iyo waxyaalahaas oo dhan. Dhammaan datadan hadda waa dummy, laakiin waxaan sameyneynaa inaan API calls aan sameyno oo xogta online-ka aan ka keeno. Right. Halkan waa very important. Waxaan halkan leenahay URL-kan jobs/id. ID-gan waa very dynamic. Wuxuu noo soo saarayaa markaasi job details isagoo eegayo ID-ga loo baasgareeyay. Sida aragtaan haddii kan aan ku dhufano in detailska uu aado, haddii aan kan ku dhufano in detailska uu aado oo uu arko markaasi ID-ga shaqo walba. That's pretty much it. Homeka waa insiiyey job details, job view iyo layoutkii. Pageskanna waa pageskii, kuwana waa componentigii. Haddii aad xasuusataan, hadda waxaa idin lahaa design partners. Design partnerska hadda some of them codekan waa ka arki kartaan. Waxaa halka aragtaan pages folder inaan haysano oo keliya pageskii nooga soo baxayaan, inaan haysano componentska oo naga dhex jiro jobs, job details, datada jobka iyo UI-gana aan kala saarayno. Marka waa qayb ka mid ah design partners. Waxaan sameynaynaa API folder iyo custom hooks iyo waxyaalahaas oo dhan. Alright. Marka koobaad waxaan rabaa akhyaaray inaan ka bilaabo waxaan halkan ku haysanaa REST API oo mock data oo aniga aan sameeyey oo public ah oo aan u sameeyey garaad akhyaarta ku jirto inay ku isticmaalaan. Halkii aan isticmaali lahayn placeholders iyo public APIs, kan anaga loo sameeyey waa very tailored. Waxaan haysanaa mock REST data, waxaan haysanaa 20 shaqo users, waxaan haysanaa products, waxaan haysanaa companies, waxaan haysanaa posts. Sida u isticmaalayso iyo waxyaalaha dhan halkaanay kugu qoran yihiin. Haddii aad rabto keliya waxaa booqanaysaa URL-kan waana idiin soo dhigi doonaa. Waxaa booqanaysaa jasonapi.grad.org. Okay. Responsive formatska kuu soo celinayo endpointska haysan waa kuwana dhammaantood. Waxaa haysanaa API jobs oo dhammaan shaqooyinka ku keenayo. Waxaa haysanaa job type, yani jobs promote, jobs location w lagu filter gareynayo iyo waxyaalahaas oo dhan. Products baa haysanaa. Marka kan markii hadda projectigan aan sameyno, waxaad ka rabaa in projectigan aad ku kalon garaysaan, kadib API-gan aad isticmaashaan, kadib projecti idinka aad kasoo dhex saarataan unique ah oo kii aniga aan sameeyey exactly aanan ahayn. Halkan waxaa arkaysaan wax walba oo aad u baahan tahay API backendiga intaasoo dhan halkaan aan ku haysanaa. Taas marka waa iga taas. Waxaan rabaa marka inaa markii koodii aan sameeyo folder la dhaho hooks. Folderkan hookiska ah waxaa ku sameynaynaa custom hooks. Waxaan isticmaalaynaa hook request inoogu dira jobska oo shaqooyinkan allahu mustacaan JSON API oo shaqooyinkan inoo soo saara. Shaqooyinkan aan ujeeda iyo waxyaalahaas jobs request si aan kan ugu dirno waxaa u sameysanaynaa custom hook. Kana waxaa u sameysanaynaa custom hook. Waxaan leenahay marka use jobs.js. waxaa halkan inoo dhex degayo request walbo oo aan u dirsanayno markaasi dhanka serverka oo aan soo qaadanayno. Markii koodii waxaan u baahanahay waxyaalo qaar inaan soo import garaysto. Waxaan kasoo import garaysanayaa from React. Okay, maxaa u baahana marka koowaad waxaan u baahanahay use callback ninkaan la dhaho. Waa sharixi doonaa waxa uu yahay. Waxaan u baahanahay ninkaan la dhaho use effect. Waxaan kaloo u baahanahay ninkaan la dhaho use memo. Waxaan kaloo u baahanahay use state. Dhammaan waa React hooks ay leedahay. Afartaas baan u baahanahay. Waxaan sameysanayaa markaasi ugu horeyn RFCE haddii aan dhaho wuxuu ii sameynayaa reactive functional component. Reactive extensionkan baa hawshaas inoo qabanaya. Reactive ES7 Reactive/Redux GraphQL Reactive Native Snippets. Autocomplete-kana waxyaalaha sigaa noo sameynaya. Hadda waxaan haysanaa Reactive Functional Component. Waxaan u baahanahay marka initial states inaan sameeyo. Marka koodii waxaan u baahanahay inaan sameeyo waxaan leeyahay waxaan u baahanahay inaad dhex gashto jobs. Set jobs baan leeyahay initialina false ha aado. Use jobs neither React component nor functional component. Waa sax. Sababta u diidaya maxay tahay ciladan qiyaas? Sababtu waxay tahay caadiyan React waxay u baahan tahay in capital laga dhigo. Waa very important ten. Hadda xarafka koowaad inuu capital ahaado. Haddii kale ma aqoonsana. Hadda ciladii way baxday. Laakiin haddii small letter aan ka dhigo muxuu leeyahay fiiri. Wuxuu ku leeyahay haddii kana ku dhufto React whose use state is called in a function oo la dhaho use jobs that's neither React functional component nor custom React hook. React name is mostly started with uppercase letter. Marka waa inaa meeshan capital aan ka dhigaa.
si oo automatically igu shaqeeyo. hadda ciladii way bixaysaa. Waxaan samaystay jobs hookies oo ugu horeyn empty aan ka dhigay. Waxaan kaloo u baahanahay inaan samaysto mid kale. Si aan u samaysto waxaan leeyahay shifty control down, shifty option down, shifty option down. Adiga waxaan maleynayaa waxay noqonaysaa control shifty down waxyaalahaas oo kale, si filekan le duplicate aan u dhaho. En, si aan duplicate markaa dhaho waxaan samaysanayaa markaasi loading state. waxaan leeyahay set loading, si loadingka la igu handle gareeyo waxyaalahan oo dhan for second aa ogaan doontaa. Aan ka dhigto waxaan u baahanahay ilaa 4, 1 2 aan kusii darsado. markii loadingka haysto waxaan u baahan oo kale inaan samaysto mid la dhaho sergi. waxaan leeyahay set sergi. waxaan kaloo u baahanahay markaasi inaan samaysto meesha waxaa ka aragtaa inaan haysano filteringkan typekan. waxaan u baahanahay inaan iidan hook samaysto, sergidanna hooga u samaysto oo state initial aan ku hayo si hadhow aan u bedeli karo markii xogta aan helo. halkan aan h ku daro. halkan waxaan u baahanahay type. waxaan leeyahay markaasi type filter. waxaan leeyahay type set type filter. Alright. waxaa haysanaa 4tan hook. ka hor inta aanan wax kale aan sii guda gelin waxaan rabaa markaasi in aan samaysto function ii wacayo xogta. si functionkan aan u samaysto haddaata maxaan ku dhahay waxaan kala saaranaynaa dhammaan API callska iyo hookiska iyo waxyaalahaas oo dhan. waxaan samaysanayaa folder la dhaho ha waxaan rabaa muuqaal aduubaya marka haddii aan hesho editka igu badanaya markii muhiim ay tahay hadal anaa iska jaraya mushkila male. waxaan leeyahay API markii aan dhaho API-ga waxaan leeyahay jobs.js. kan waxaan ka dirsanayaa marka requestiska iyo waxyaalahaas oo dhan. Okay, waxaan sameynayaa markaasi ugu horeyn waxaan leeyahay const. waxaan leeyahay API base URL aan dhaho. kan waxaa waaye URL-ka baseka ah ee requestiska aan ka dirsanayo. base URL-kayga maxaa waaye waa kana ninkan la dhaho waaye /API. kan waa base URL-kayga aniga. base URL-kayga waa kana waxaa ka dhigayaa string ahaan u samaysanaya waa haystaa. base URL-ka markii aan haysto hadda marka waxaan samaysanayaa request. waxaan leeyahay export. markii kowdiba export garay functionkan aad samaynayso. waxaan leeyahay constant get jobs. get jobskan import garay waxa weeyaan waa assign function bracket xir soo fur kadib ii fur marka. maxaa doonanayaa waxaan leeyahay igu dhib variable. waxaan leeyahay response isoo qabo. halkee response iga soo qabanaysaa waa inaa await dhahdaa horta maadaama kan assign uu yahay. waxaan leeyahay fetch baa isticmaalinaa. waa function ay leedahay javascript oo markaasi qaadanaya input la dhaho URL iyo request information iyo waxyaalahaas online kana loogu tagalino wax ay ka doono. waxaan doonanayaa marka string operators. string ma dhehaysid sababto haddii string aa dhahdo kuma dhex qori kartid. si aa ugu dhex qorto waa inaad dhahdaa markaasi laptopki waa inaad saan dhahdaa si requesti aa ugu dhex qori karto string aa ugu dhex qori karto markaasi yaa qorkan ma qorin. Okay, waxaan leenahay marka waxaan doonanaynaa waxaan leenahay base URL-kii aan haysanay ugu horreyn waxaan leenahay sorry waxaan leenahay base URL-kii aan haysanay /jobs. oo maxaa macnaheedu tahay si aanan mar walba aanan u qorin hal mar waxaa u dhiibtay variable-kaas isticmaalaya. waxaan dhahay variable-kan /API ku dhisiman /jobs yaa responsiga ka sugaya. markaasa waxaan leeyahay marka haddii responsiga aynan okay ahayn waxaad soo garaysaa new error. waxaad soo garaysaa new error oo aad leedahay failed to fetch. Okay, waxaan leenahay haddii cilad ay jirto macnaheedu waxaa waaye waxay noo soo saartaa failed to fetch. ii xir marka kan sorry kan iisoo xir marka auto complete kan baa wereerinaya. waxaana if response is not okay waxaa inoo soo garaysaa dan waa tan o inay ahaato sababtoo 3 waa dhaa 3 waaye. waxaa inoo soo garaysaa in xogta lasoo qaado waa lagu guuldaraystay. haddii taas ayna dhicin macnaheedu waxa waaye xogti waa la hayaa. xogta waxaan u dhiibanaynaa marka data oo aan leenahay res.json. xogta halkaas hanoo degto. Okay, kadibna waxaan soo celinayaa marka datadii aan haysanay datada ku jirto. si meeshaan cilada aan uga iskaga ilaalino waxaan leenahay if there is data and datada inoo soo celi. tan waxay naga saacidaysaa waxaan fiirinaynaa haddii xog ay jirto. waxaan leenahay haddii xog ay jirto then xogtaas xogta ku dhex jirto inoo soo celi. macnaheedu waxaa waaye functionka meel walba oo laga waco waxaa soo helinaa xogta uu soo saarayo API callkan. waxaan ku noqonayaa markaasi hadda jobskeygii. maxaan leeyahay waxaan isticmaalayaa use effect hook si xogta halkaas ugu keeno.
waxaan leeyahay ugu horeyn use effect use effect maxaan dhex dhiganaynaa ugu horeyn waxaan leeyahay let cancelled is equal to false. Tan waan ku sharxi doonaa sababta u isticmaalayno. Haddii aa og tahay use effect goormee componentiga render garaysaa componentiga waxay render garaysaa before mounting componentiga intaan la mounting garayn. Marka si ka waran haddii qofka aan dhahno uu halkan booqdo haddana halkan uu booqdo intii xogta la doonaya haddana inta uu ku noqdo maxaa dhacayo xogtii waa la doonaya xoga maraa loo baahna la keenaya maraa loo baahna baa la soo daynaya. Marka si aan u hubino in qofka markii xogta uu dirsanayo componentiga uu mounted yahay mounted macnaheedu wax kale maaha waa componentiga inuu active yahay in URL kan joogo haddii URL kaas laga noqdo componentiga jobs waa unmounted. USC State marka waxay during markii unmounted componentiga uu yahay ay rangareysmataa si markaasi qofka uunan u dhicin xog aan loo baahnayn aanan la keenin ama xog loo baahay aanan loo weynin marka koodii waxaa hubinaynaa in la joogo horto componentiga uu active yahay taasaan u adeegsanaynaa ugu horreyn waxaa leenahay set loading is equal to true macnaheedu waxaa waaye xogtii aan doonaynaa kadib baa waxaa isticmaalaynaa markaasi fake jobs maxaa u baxayay ma iis horto get jobs baan u bixiyey waxaan leeyahay get jobs get jobskii baa wacday get jobskaas waxaan leeyahay markii aan waco kadib dot then kadib waxaa iga soo saartaa datadaas kadib baan wax sii sameynaya haddana datadaas markii aan hesho waxaan leenahay if it's not cancelled wait sorry datadaas markii aan hesho waxaan leenahay if there is no cancelled macnaheedu waxaa wacdii uunan qofka unactive una componenty ka ahayn then waxaan leenahay set jobski waxaa u dhiibtaa datadii aan haysanay hadda wax kale ma aanan sameynin waxaan dhahay use effect waxaan hubiyey in componentiga uu mounted yahay loadingkii true baan ka dhigtay functionkii waxa wacday set jobskaas muxuu isoo celinayaa wuxuu isoo celinayaa datadii waxaan dhahay datadaas markaa hesho then datadii iisoo qabo waxaa hubisaa componentiga inuu mounted yahay kadib set jobskan waxaa u dhiibtaa datadii aan ka keenay functionkaas oo UC stateka kahor wuxuu ahaa empty brackets hadda laakiin wuxuu inoo haynayaa datadaas kadib markaa waxaan u baahannahay haddana inaan dhahno haddii cilad ay jirto handle garay si aan u dhahno waxaan leenahay dot catch haddii cilad ay jirto waxaad soo qabataa error kadib waxaan leenahay errorkaas asigane wax kale lagama rabo keliya markaan waxaan leenahay if it's not cancelled then sidoo kale console logni aan dhahno waxaa kasoo saartaa errorkaas si cilada waxa ay tahay aan u aragno waxaan leenahay dot finally markii requestiga iyo wixii oo dhan ay dhammaadaan wax kale lagama rabo waxaa ka dhigtaa horta kow set loading to false horta haddana iga hubi if it's not cancelled waxaan leenahay set loading to false canceledkan hadda waa isticmaalaynaa laakiin haddii aan isticmaali lahayn librarieska requestiga diro sida Axios SWR iyo React Query ayaga automatically noo handle garaynayo laakiin hadda annaga ayaa manually u samaysanayna hadda requestigan hadda functionkan clear ma yahay engineer waxa uu sii dambeeyo oo leenahay inaan soo return garayno finally waxa u baahanaa inaan soo return garayno functionkan oo aan leenahay canceler 2 markii waxaan o dhan ay dhammaadaan kadib unmount samee haddaa rabto laakiin ka hor waa in aa hubisaa xogtaa markuu qofka dalbaday in la keenay is that clear clear okay hadda waxaan haysanaa haddii commenty aan u sameeyo waxaan diraynaa markaa halkan API call to get jobs requestigii oo aan dirayna oo shaqooyinka aan ku helaynay waan dhammaystirnay maxaa kaloo u baahannahay engineer waxaa kaloo u baahannahay inaan sameyno kan sida aragto halkan waxaan ku haysanaa job types laakiin waxa ma aha markii API-ga naloo keeno waxaan loo keenayaa oo kale job typeska iyo waxyaalahaas oo dhan alright kaasaa marka hadduu gudagalaynaa inaan sameyno waxaan leenahay haddii markaasi kan aan kasoo dhaqaaqo isagoo dhanba ritaantan iyada iga durki ugu dambeyn bay ii imaanaysaa waxaan samaysanayaa mid kale oo kan waxaa ugu talagalay inaan dhaho filter jobs by type asaabii dhamaystiraba waxaan leenahay markaasi constant variable baa u dhiibanayaa waxaan leeyahay job types waxaad lama dhigtaa use memo engineer maxaa u isticmaalaynaa use memo wuxuu sameynayaa aan dhahno meeshaan waxaa ku haysanaa 200 oo shaqooyin ka waran haddii dhammaantood mar walba oo aan raadinayno la raadiyo mar walba oo aan tirtirno la wada tirtiro mar walba oo aan raadino lasoo raadiyo haddana waxay noqonaysaa codsiyo aan loo baahnayn si arrinkaas marka looga hortago reacti waxay samaysa waxa la dhaho use memo
haddii use memo wax kale ma sameynayo. haddii stateka uu isbedelo unbuu la wacaya. haddii stateka uunan isbedelin lama wacayo. meesha markii aan wax ku qorno bedelno, markaas unbaa use memo la wacaya. Valueskii horena waxba kama bedelayo. request cusub ma diraayo haddii requestiga almost uu yaalo, wuxuu sameynayaa caging. marka use memo taasaa u isticmaalaynaa. waa isla arki doonaa sababta use memo oo muhiim u tahay. tusaale yar hadda taasaa ka mid ah. meeshan 500 oo xog haday ahaan lahayd, mid walba aad doonto mid walba soo celiyo, qofka isticmaalaha ama userka internetkiisa culays badan oo ka dareemi lahaa. sidaas aawadeeda marka use memo hadda u isticmaalnaa si aan u cage garayno oo aan dirno kaliya requestiga marka sidii saxda ah loo baahan yahay. use memo waa sida use effect oo kale. wuxuu qaadanayaa isagana kan aan soo xirno halkan aan ku xiro. use memo wuxuu qaadanayaa markaasi waxaan leenahay return. waxaad soo celisaa objectigan oo aan leenahay marka koodii all, sababtoo ah halkaan sida ujeeda waxaan ku haysanaa by default waxaan haysanaa all oo dhammaantood soo baxayo. markii kan lagu filter gareeyo kale la wacaya use memo si uu usoo saaro filterkii lagu filter gareeyay. ma very useful, laakiin waxaad dareemi kartaa kadib markii aad dhisayso application weyn run ahaantii. aan dhahno dot new, haddii wax new ay jiraan waxaad sedahdaa jobs dot map. jobska ku dul wareeg waa haddii wax new ay jiraan. jobka ku dhex jiro markaasi waxaan leenahay jobs dot map jdaasaan waxaan usii dhiibaynaa markaasi j dot type. okay. okay, yes. waana dhahnaa markaasi allahu mustacaan jobs dot map. jobka aan haysano waxaan kala soo bixinaa job dot type. haddii aan ku tusiyo sababta aan taas u leeyahay, haddii halkan aan tagno slash jobs, muxuuna siinayaa organizer aan ka dhigo, wuxuuna siinayaa type. mujida mid walba wuxuu wataa type. marka waxaa ku dul wareegayaa jobskii aan helay oo requestiga aan diray, waxaan kasoo saaranayaa type shaqo walba. sababta functionska ay muhiim u yihiin tan baa ka mid ah. hal mar baa requestiga aan dirsaday, jobskan baa u dhiibtay, jobskan unbaa dib u isticmaalaya oo aan ku dul wareegaya. hadda use memo halkaas oo inooga egyahay. arrinta kale oo noo xigaysa waxay tahay inaan sergidan idan aan sameyno. sidaan sergidan u sameyno waxaan leenahay sergi jobs by name title company on location. si taas aan u sameyno waxaan leenahay constant aan u dhiibanaynaa. waxaan leenahay markaasi search job. waxaan leenahay iyadana use memo isticmaalaynaa sababtoo ah waxaan rabnaa inaan keygen u sameyno. waxaan leenahay use memogaas baa hadda furaynaa. waxaan u dhiibanaynaa markaasi oo aan soo return garanaynaa jobs dot. waxaan isticmaalaynaa methodkan la dhaho filter. arrayda methods badan ay leedahay. waxay leedahay method oo findy, waxay leedahay method find index iyo waxyaalahaas oo dhan. haddii javascript aad xasuusto waan soo aragnay qaarkood. waan soo aragnay tusaale ahaan map waan soo aragnay, join waan soo aragnay iyo waxyaalahaas oo dhan. waxaan leenahay dot filter. waxaad ku filter garaysaa job walba. markii aan job walba aan halkaas kasoo qaadano waxaan sii leenahay okay. markii job walba halkaas aan kasoo qaadano waxaan ku filter garanaynaa horta qofka xogtii uu soo dhiibaa muhiim inaa hayno. waxaan leenahay marka taasna constant u dhiibanaynaa. waxaan leenahay search term, qofka xogtii uu raadiyey. waxaad la mid dhigaynaa markaasi job. okay, halkaan aan dhahno jobs intaan dhigna job aan dhahno waxaan leenahay job dot title. qofka wuxuu raadin karaa search termska waxay noqon karaan job title, job company, job location. laakiin arrinta qof uu samayn karo waxaa ka mid ah meeshaan plus intaan dhihi lahayn waxaan leenahay haddii aan dhahna ka waran qofka meeshaan uu yimaado oo uu raadiyoba xaraf weyn iyo xaraf yar, si ku waanaynaa sababtoo ah hadda si aan u detect garayno ma laha. si arrinkaas aan u xalino waxaa muhiima in halkan aan ku handle garayno. waxaan leenahay markaasi dot to lower case. waxaan u bedelaynaa dhammaan xogta lower case si aan u hubino inuu match garaynayo waxa userka uu u baahan yahay. casean capital waaye. kanna waa soo qaadanayaa to lower r baa inta ka dhiman to lower case. tanna waa soo qaadanayaa, tanna waa capital. isla iyadii baa soo qaadanayaa, halkan baan dhiganayaa dot to lower case. haddana halkan baan leeyahay dot to lower case. okay, sergi termkii waa soo helnaa. qofka haddii uu raadiyo title ama company ama location, sergi termkaasaa haysanaa. markaasa waxaan leenahay markaasi constant kale u dhiibanaynaa oo aan leenahay consty. waxaan leenahay markaasi margin type is equal to, si aan u hubino in ay match garaynayaan filterinki waxaan leenahay type filter automatically isagaba hay dhammaystiro.
kadib markii filterkaas aan sameyno waxaan leenahay markaasi const class waxaan sameysanaynaa market search. waxaan leeyahay market search kan dib igu dhig, laakiin waxaan rabaa marka koodii inaan dhaho constant aan sameeyo market status, sababtoo ah shaqada waxay noqon kartaa statusyo badan, waxay noqon kartaa closed iyo open. statuskana marka rabaa inaan filterkeeda ansaxo market typekan, oo haddii ay la mid tahay all, then job.status waa inay sorry, waxaan rabaa inaan marka koodii aan sameeyo kadib aan ku sharxo by doing it. markoodi waxaan leenahay status filter. status filterkan haddii uu la mid yahay all, okay, kadib waxaan sameynaynaa arrinkaa soo socda. ama status filterka uu la facfac yahay open, sidoo kalena job dot maxaa halkan ku haysanay, waxaa halkan ku haysanay is open haddii shaqada ay furan tahay, then ama anaa ku sharxi doono closed is not job is equal to open. okay, wax kale ma aanan sameynin. ugu dambeyn marka waxaan rabnaa inaan soo return gareyno matched yani sergigaas matched search and matched type and matched status. kan ii tirtir meesha waxbaa qaldan, waxa qaldan maxay noqon karaan. status filter is not defined. okay, type filter kan okay, status filterkan waxay ahayd inaan component inaan usoo sameysano cookies, oo aan leenahay markaasi status filter set status filter then set status filter. okay, hadda major searchidana cilad baa ka taagan, sababtu waxay tahay major searchigan maba sameyninba. waa baanahay major searchigaas inagana inaan sameyno. waxaan u bixinay search item laakiin aan u bixino market search si clear oo u ahaado halkan. alright, hadda ciladaas way xalisan tahay. wax kaliya ma aanan sameynin, waxaan sameynay searchidan, laakiin arrin baa ogaanaysaa kadib uma isticmaal leeyahay. halkan waa inaan isagana wax soo celinaa si maraba aan render garin automatically kan aan wada dhigo. waxaan leenahay dependencies aan uga dhigaynaa markaasi kuwaan si mar walbo aanan loo wicin. alright, wax kale ma sameyn. waxaa dhahay search jobs username waa isticmaalay. waxaa dhahay jobska ku filter garay e job walba u fiiri job.title to lowercase or job.company to lowercase or location to lowercase. hadda waxaa dhaha marka haddii typeka uu la mid yahay all ama job.type uu la mid yahay type filterkii aan usoo dhibnay, kadib waxaan sameynaynaa marka statuska inaan ismaaj garayno. tan locationka markaa ismaaj garaynay waxaan leenahay all open closed dhammaantooda soo wada celinayna. marka kuwaan intaan ku haysano markii aan dhahno all wuxuu tegayaa API-ga, wuxuu fiirinayaa maxaa job all full time haystaa, kuwaasuu soo saaraya marka. alright, hadda waxaan u malaynayaa we are pretty much done. aan soo ritaan garayna markaasi dhammaan wixii aan haysanay halkan. waxaan soo ritaan garaynayna markaasi jobs, waxaan soo ritaan garaynayna markaasi loading, waxaan soo ritaan garaynayna job types, waxaan soo ritaan garaynayna dhammaan waxyaalihii halkan noogu samaysnaa. okay, hadda aan u naqano marka jobskii. haddii jobskii aan u tagno wax kale ma sameynayno, waxaan tegaynaa ugu horreyn pagekii dhihi jiray jobs. waxaan leenahay markaasi waxaan sameynaynaa constanty oo aan u dhiibayno job state. waxaan la mid taadhaynaa use jobs. use jobskan yaa wixii o dhan handle garaynayo. see ugu baas garaynaynaa, waxaa ugu baas garaynaynaa as sorry, waxaa ugu baas garaynaynaa as probs. waxaan leenahay job stateka ha la mid noqoto markaasi all everything that we have in job state. okay, xogtaas oo dhan wuxuu haystaa marka halkan. halkan markii aan tagno waan ka aqbalaynaa dhammaan xogtii halkan aan usoo baas garaynay. waxaan leenahay
job state, job intaan oo dhan ba iyo aqbal. Marka intaan iyo aqbasho kadib, een, waxaan leenahay ugu horeyn halkan maxaan ku haysanaa, waxaan ku haysanaa job type. Halkan by default meesha aan ku haysanay waxaan leenahay markaasi job type dot map. Halkan ma haysanaa job type, job types dot map, ku dul wareeg. Maxaa inoo soo baxay? Sida aragto waxaa inoo soo baxay dhammaan job typeski oo online ka imaaday. taas automatically online ka inooga imaanaysaa. Okay, xogtii mock datadan aan iska tirtirno. waxaan leenahay markaasi en, allahu almustacaan, meeshii mock data aan haysan lahayn waxaan leenahay jobs. waxaan leenahay jobs. hadda waxba lama soo saaray, sababto maxay tahay? Okay, cilada hadda aan garta marka. waxaan leenahay job.title.series to lowercase. laakiin maxaa la birbardhigoonaa? ma dhahin dot include. waa inaan dhahnaa dot include. waa inaan fiirinaa in uu la mid yahay waxaan raadinayno wixii serjida inoo soo saarayso oo dot to lowercase ah, then to lower case ah. Okay, hadda marka waxaa sameynayna wax kale maaha. use state dot job state. aan dhaho markaasi aan isticmaalo bal kan aan dhaho why this error. waxaa u dhiibaya markaasi my API response look is this. aan aragno sida agentiga uu inoo caawiyo. hadda waxaa isticmaalayaa GitHub Copilot. wuxuu tegayaa use jobs, processor oo dhan wuu akhrinayaa, evaluating, wuxuu sameeyey editadu sameeyey. Oh wait, skipped waxyaalahan. Budget type is not defined. wuxuu sameeyey, wuxuu kusoo diray budget type-kan. Okay, the error has been fixed. The issue is GetJob is already returned the data array, but the hook was trying to access that again. Okay, hadda uu shaqeeyo. laakiin waxaan rabaa sababta inaan ogaado uu shaqeyn lahaa marka hore. Okay, waa caqabad isla caqabadeedaad. haddaan odho data. Okay, hadda error soo saaray marka. Okay, sababtu taasay ahayd marka. sababtu wax kale ma ahayn. xogta datadii baa halkan ka helnay, kadibna baxna datadii baa halkan kasoo qaadanayna. marka hadda haddii aan jegarayno jobskeena oo refresh dhahno, waxaan arkaynaa dhammaan jobskii in halkan naga soo saaray UI-ga. UI-ga hore noogu diyaarsanaa, keliya API-gii baan ku qabtay. hal wax kale baa inoo harsan. waxa inoo harsan waxay tahay markaas filtering inaan ku darno. si filterinka ugu darno, waxaan u baahanahay horta inaan tago ninkan la dhaho kuwan all iyo waxyaalaan meeshan iga soo baxayo. full time intay ku qoran tahay, full timekan iyo waxyaalaan aan tago halkan oo aan dhaho kanaan leeyahay job typekan. markaasi haddii on change lagu sameeyo, waxaan horta ku dul wareeg, ayadaan uma baahni. markii aan ku dul wareeg kadib set type filterka waxaa ka dhigtaa typekan leeyahay bis, then it must work. sida ujeedaba waxaan leeyahay cursor pointer. sida ujeedaba cursorka hadda uu shaqeynaya, laakiin active functionkaas ma shaqeynayo. waxaan rabaa inaan dhaa markaasi haddii typekan, haddii job, haddii markaasi waxaan leenahay type filterka oo halkan nooga imaanayo, aw type filterka, type filterkan waa in halkan ka keensanayayd. type filterka horta ma soo baasgareynayaa. sida ujeedaan hadda almost uu shaqeynaya. waxaan rabnaa job detailska inaan isla fiirino. job detailska isaga uu iska fudud yahay. halkan waxaan ku sameysanaynaa markaasi, waxaan sameynaynaa API call kale oo aan leenahay markaasi export get job by ID. jobs waa kan waa easy, automatically isaga ii dhamaystiray. waxaan nahan get job by ID. ID-gan waa argument iyo helino. waxaan nahan slash job slash ID. haddii aanan okay ahayn,
waxaa soo saartaa cilad, haddii kale soo celi kii. waxaan sameynaynaa markaasi hook kale oo la dhaho usejob.js. usejobka markaasi aan dhahno rfce wuxuu ii haynaya isaga markaasi inuu ii waco one job inuu iisoo fetch gareeyo. waxaan halkan ku samaysanaya use effect waxaan leeyahay halkan waxaan ku sameynaya API call. API callka waxaan sameynaya horta markooda inaan dhaho let cancel. waxaan leenahay let cancel equals false. haddii cancelkaas false ay tahay, markaas haddana sidii oo kale aan sameynayna set loading to true. waxaan leenahay get job inaan dhaho kan by id, then response markaa haysano haddii cancelka details u dhiib isoo xir, haddii kale ciladii soo qabo, haddii cancel uunan ahayna finally cancel aan garay. Perfect. waxaan u baahannahay keliya inaan samaysano constive variableskan oo aan leenahay job iyo jobiskaas iyo loadingkaas. wuxuu ku leeyahay use state null ma noqon karto, waa inaan dhaha horto saan iga dhig, aan dhahno use state, aan dhahno kana use state. sidaa ku ujeedaba isla ciladii baan ugula haystaa hadda, oo waxaan isticmaalaynaa lower case. alright, hadda use waxaan leenahay use state. hadda okay waaye, loadingkani waxyaalahaas oo dhan waa haysanaa. waxaan u baahanaa marka inaan soo return gareyno. return aan leenahay, waxaan soo return gareynaynaa job iyo loading, labadaas un baan u baahannahay hadda. kadib waxaan ku noqonaynaa markaasi job detail pagekeeni. job detail pagekeeni markaan tagno, ugu horreyn waxaan isticmaalaynaa hook la dhaho waxaan leenahay horta use job. waxaan u baahannahay use jobkii inaan soo qaadano. waxaan kaloo u baahannahay id-ga inaan soo helno. id aan leenahay, id-gaas halkuu ka imaanaya, waxaan leenahay use paramiskaas baa id-ga inoo soo keenaya. use paramiskaas macnaheedu waxay tahay wax kale ma sameynaya, wuxuu fiirinaya url-kan id-ga loo soo baas gareeyo. hadda marka waxaa lagaga baahan yahay keliya inaan halkan promise u baas gareeyo oo aan loading, oo aan dhaho job state, oo aan dhaho horta kow halkan waxaan u baahanahay job iyo loading inaan soo helo. waxaan leeyahay loadingkaas u baas gareey. sidoo kale waxaan u baas gareynaa markaasi job oo ah jobkaas halkaas ku jirto. perfect. hadda haddii aan tago graph use parameters marab inaan furo, hadda haddii aan tago mock datada markaasi uma baahni, waa iska tirtiri karaa. halkan waxaan ka aqbalaya markaasi jobkaas iyo xogtaas oo keliya. haddii hadda aan halkaa tagno wax badan inooma soo baxaya, sababtoo ah si correcti uma handle garaynayno. waxaan sameynaya keliya inaan tago allahu mustacaan company logo. allahu mustacaan kamaba jiraba. haddii halkan aad tago waxaa la yidhahay undefined baa liisu saaraya. sababto wax kale ma aha, sababtoo ah job detailkan maxaa u baasgaraynaynaa, id-gan ma soo baasgaraynayno miyaa. okay, haddii aa ogtahay use jobtan wuxuu aqbalayaa id. alarmka waa in halkan id-gaas u baasgaraynaa, haddii kale id-gan very useless waaye. halkan aan tagno, id-gan halkan aan u baasgaraynaa, then let's see. haddii la hadda ma shaqaynayso, sababtoo ah waxaa isticmaalaynaa mid khaldan. waxaan rabnaa inaan baasto get job by id, then hadda markaasi company logo waxaa laleeyahay undefined waaye. company logo undefined waaye, sababtu maxay tahay, company logo si khaldan baa usoo saaraynaa. waa inaan ku noqdaa, waan dhahaa company logo use job company logo, halkaan aan soo saaro job undefined waaye. that's weird. waxaan leenahay horta use jobta muxuu qabanayaa. use jobtaas isaga laftarkiisa waa inuu id helaa. id-ga markii uu helo waa inuu u baas garayaa markaasi job id-ga waa inuu id ahaan u baas garayaa, and then id-ga halkan laga soo return garayaa. that's the correct way. fetch get job by id-na id-gii loo baas gareeyey. haddii datada uu helo datadaas u dhiib. haddii datada helo datada u dhiib, haddii cilada jirta kaa soo saar.
ugu dambeyna cancel logaas false ka dhig, kadib soo dhitaan garay loadingkaas iyo waxyaalahaas oo dhan. Okay, tan perfect waa si sax bay u shaqeynaysaa, laakiin halkeen ka wacinaa kan horto. Okay, waa inaan ku noqdaa job detail page. Waa saxnaa, waxaan u baahnaa inaan dhaho use job. Use job taas aan ka wacda halkan, kana iska tirtiro. Hadda waxaa arkaysaa in jobiskii dhammaan ay noo shaqeynayaan. Wax walba saarmin ay yihiin. Waxaa korsaa marka ku qaadanay Sergi bartan unbaa inoo dhiman. Sergi bartan si aan u sameyno iyadana waxaan ku noqonaynaa markaasi en, jobs page, jobs viewgeyn baan ku noqonaynaa. Waxaan leenahay haddii Sergidan la tago away jobskan haddii viewgan la tago Sergida aw Sergidii waxaan leenahay markaasi valuega horta kasoo baxaayo kan iga tirtir, read onlydan ka tirtir, area labelkan ka tirtir. haddii haddaan ku noqono okay disabled miya cursor default outline none. waxaan leenahay markaasi valuega horta markooda kasoo baxaayo ha ahaado allahu mustacaan Sergida wixii ku qornaa save. Sergida is not defined. horta waa inaan Sergida usoo pass garaynaa, markaan tagnaya Sergida aan usoo dhiibno. hadda mar haddii aan dhahno waxba laguma qori karo ilaa hadda. Sergida waxay ahayd inuu ka imaado use job scan. Okay, Sergi ma export garaynayna. Okay, halkan Sergi ma export garaynayna maya, waa inaan Sergi halkan ka export garaynaa. hadda inputkan muxuu disable leeyahay taasaa su-aala. Inputkan engineer Sergiga ah haddii halkan aad tagno jobs detail page, job detail maraba waxaa rabaa jobs page halkan geey. waxaan leeyahay markaasi caqabadu waxa ay tahay haddadan joogo Sergi. horta Sergi kama yahay just to confirm. caqabadu maxay tahay marka pointer event none. pointer eventigaas baan ugu dheelaya haddii aan raadino waxaa arkaynaa perfect inuu ku shaqeynayo. alright, projectigan hadda si fiican oo nagu shaqeynayaa. waa arki karnaa dhammaan listiskii, waa raadi karnaa waxaa rabno full time, part time, open, closer, intaasoo dhan waan ku arki karnaa. wax keliya haddaana shaqeynin waa open tan iyo closerkan. sababtuna waxa ay tahay allahu mustacaan openka iyo closerka waa inaan ku maab garaynaa. kadib spamkan waxaan leenahay on click, markii lagu dhufto wax kale ha sameynin. waxaan leenahay self function set status filter, waxaa ka dhigtaa markaasi statuskan hadda la joogo oo ah either kan iyo xeraan. cursorkana waxaan ka dhigaynaa pointer. cursor pointer aan leenahay. haddii aan eegno waxaa arkaynaa isagan inuu shaqeynayo. haddii full time aan tagno okay, meeshan waa inaa all ka dhignaa. waxaan hadii u dhufto horta keyga waxaan ka dhignay status. okay, waxaan leenahay haddii filter statuskan status status filterkan waa inaan halkan ka aqbalnaa. robiska qaar aan usoo baas garaynaa, hadda usoo baas garaynayaa. waa inaan tagnaa jobskan, waa inaan markaasi halkan aan usoo dhiibaa iyadana sidoo kale. okay, status search, status filter, status filterkan halkan waa inaan ka aqbalaa isagana. jobs haddii aan tago view job aan tago status filterkan waa inaan dhahaa haddii uu la mid yahay statuska halkan aan ku haysano then coloringkaan sameeyay oo la mid ah waa macnaheeda. marka hadda waxaa arkaysaa projectigan almost inuu shaqeynaya. labada muhiim ah hadda, laakiin almost inta kale way shaqeynayaan. waxaan baranay use effect, use parameters,
use callback, react router iyo probis iyo waxyaalahaas hore aan u naqinay. marka cashirka nooxiga marka inta kale sii dhamaystirnaa